بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo jirnay maadadeena xisaabta ah fasalka 8aad waxaan soo qaadanay cutubka afraad oo ah statistics waxaan qaadanay lesson-kiisa koowaad iyo lesson-kiisa labaad lesson-kiisa labaad sida aan ku soo qaadanay waxaan ku soo qaadanay graph bar graph kana waxaan ku qaadan doonaa insha Allah taala isla graph-ka laakiin waxa la yiraahdaa graph-kan bar graph sidoo kalena waxaan qaadan doonaa markuu lesson-ka naga dhamaado insha Allah exercise-ka haddaba learning outcomes-kana laga rabo lesson-ka markuu dhamaado wuxuu yahay number 1 draw a bar graph inaad sawiri karto bar graph number 2 waxa laga rabaa represent information bar graph inaad xogtaada ku muujin karto qaab bar graph number 3 na waa maxay interpret information from bar graph inaad ka soo aqrin karto ama ka soo diraan karto xog ku qoran bar graph number 4 na waa inaad mahadisaa wixii aad ku baratay bar graph-ka waayahay bar graph aan u galnay marka hadda ama pie chart and a bar graph is also known as circle graph or cake graph waxaa loo yaqaanaa circle qaabka goobada ama qaabka cake ay u samaysan yahay sidaa darteed waxaa loo yaqaan ama cake graph ama circle graph waxaa loo isticmaalaa marka it's used to show information when the number of items are few markii ay xogta aad haysata ay tahay mid yar waxaad isticmaalaysaa bar graph and the value of each items determines the portion it represents in the bar chart waxay markaan qiimo kasto aad haysata waxay ku xiran tahay inta ay ku sawiran tahay bar chart-ka circle-ka guud marka aad haysata oo ah 360 degree-ga waxay u taagan tahay inta aad haysato oo quantity ah haddaba marka qaabku u egyahay bar graph waa ka xagga ku sawiran bar graph-ka sidaas buu u egyahay title-kiisa kor buu ku muuqdaa marka kadib hadda halka waxaan ku haysanaa afar quantity oo kala duwan afartii quantity-na waxay kala leeyihiin portion u gaar ah ama xagal u gaar ah mid walba ay u taagan tahay haddaba tusaalaha aan aragna marka tusaalaha koowaad aan aragna tusaalaha koowaad waxaa lagu yiri a party was attended by 60 men 90 women 50 girls and 40 boys then waxaa lagu yiri represent this information on bar graph xogta marka waxaa la rabaa inaan ku sawirno hab bar graph ahaan marka koowaad horta waa inaan naqaana attendance dadka ka soo qayb galay maxaa la yiraahdaa baatiga xafladaas total people waa inaan naqaan total number of people maxay noqonayaan waa 60 men oo lagu daray waxaa lagu daray 90 women lagu daray 50 boys lagu daray 50 girls sorry 50 girls lagu daray 40 boys koo waa inaan xogta haysana intaa markaa isku darno waxay noqonayaan wadartooda guud oo aan haysana dadka meesha ka soo qayb galay waa 240 bay isku noqonayaan 240 attendance marka soo saarta kadib marka waxaa la rabaa haddaba tirada guud marka soo saarta haddana waxaa la rabaa inaad soo saarta xagal kasta iyo inta qof oo u taagan aan ku bilawnay men ragga aan ku bilawnay menka waxay noqonayaan waxay u taagan yihiin ayaga waa 60 loos dhigay tirada guud oo dadkii meesha ka soo qayb galay oo ah 40 baa waxaan ku dhufanaynaa goobada inay tahay waxaan ognahay xagasheeda 360 degree 360 degree baan ku dhufanaynaa si aan u helna xagashay u taagan yihiin 0 iyo 0 isu bixi 24 inta u qaybi intana 24 u qaybi waa 15 markaad 6 ku dhufato waa 60 120 xagga rag weey women haddana aan soo saarno women tirada dumarka meesha jooga waa 9 loo qaybiyo tirada guud oo ah 240 ku dhufo marka saddex xagashi goobada oo ah 360 0 0 isu baxay 24 inta qaybi intana 24 qaybi 15 haye 15 marka sorry sagaashan
loo qaybiyey waa maxay 240 lagu dhuftay 360 0 ها صح waa maxay inta waa 15 15 markaa 9 aad ku dhufato waa 135 degree haddana gals aan u gudubno gals tirada gals aan haysana waa 50 oo loo qaybiyey 240 lagu dhuftay xagasha guud oo 360 ka haddaba marka 0 iyo 0 isu jar 24 intuu qaybi waa hal intana 24 qaybi waa 15 15 lagu dhuftay 5 jawaabtu waa 75 degree waxaa ugu dambeeya xagashi waxaa ugu dambaysa haddaba waxaa ugu dambeeya boys wiilash boysna waxay noqonayaan tiradooda guud waa 40 loo qaybiyey 240 lagu dhuftay 360 then 0 go with 0 haye by 24 1 by 24 15 15 times 4 answer is 60 degrees hadda waxaan soo saarnay marka xagasha axyar ay kan miya 9 miya صح ما صنت ان halkaa waa 9 صح 9 waaya haddaba marka xogtaan aan bandhigna marka xogtaan waxaan rabnaa inaan ku muujino raggii waxay noqdeen men waxaa weeye 90 degrees and women waa 135 degree and girls waa 75 degrees iyo boys oo ah 60 degrees haddaba marka xogta tan waxaan ku muujinaynaa qaab sawir ah aan ku sawirnay marka goobadii marka koowaad waa inaan goobada sawirnaa marka waxaan ku hormaraynaa men ayaan ku hormaraynaa oo ah 90 degrees xagal 9 calaamadeedu waa sida tirada ragga marka men oo u taagan 90 degrees haddaba maxaa noo soo haray women haddana women 9 way ka weyn tahay waa 130 degree women 135 degree sorry waxaa kuu soo haray girls 75 degree waa 75 degree finally boys waxay noqonaysaa 60 degrees haddaba xogtaanadi saan baan u soo bandhignay ugu dambeynna marka waa inaad u samaysa ciwaanka titleka waa inaad u samaysa waa maxay biograph of party attendants ciwaankaaba ugu dambeeyay inaad ciwaanka u samayso wey haddaba tusaalaha xiga aan aadno tusaalaha xiga example 2 waxaa lagu yidhi Mohammed keeps 90 goats 15 sheep 25 cows 50 chicken in his farm draw the information on a pie chart haddaba xogtaa marka aan pie chart ku sawirno tusaalaha labaad isla stepskan ayaan maraynaa insha allahu tacaala marka koowaad waxaan soo saaraynaa tirada guud oo livestock uu haysto Mohammed total livestock ayaan soo saaraynaa marka koowaad total livestock markaan isku darsanno waa maxay 90 lagu daray 15 plus 25 plus 50 waxay noo noqonaysaa 180 total livestock waa 180 degrees markaa kadib baa waxaan soo saaraynaa each tusaalaha ugu koowaad waxaan ku hormaraynaa goatskaan ku hormaraynaa marka koowaad goats waxay u taagan yihiin ayaga waa 9 laakiin tirada guud u qaybi 180 lagu dhuftay 360 degree haddaba isu qaybi marka halkaan 180 u qaybi waa intana 180 u qaybi waa 2 9 lagu dhuftay 2 waa 180 degree sheep
sheep waxaa weeye iyadana sidoo kaleeta waxay u taagan tahay sheep waa 15 divided by total number oo 180 ah times 360 ayay isu qaybi by 2 1 by 2 and by 180 1 by 180 2 times 15 waa 30 degrees haddana waxaa inoo haray cows waa 25 divided by total number of livestock or 180 times 360 degrees then by 181 by 182 2 times 25 waa 50 degrees ugu dambeyn waxaa inoo haray chickenka oo ah 50 divided by 180 times 360 degrees by 181 by 182 2 times 50 100 degrees then waxaan rabnaa angleskan inaan ku muujino haddaba marka graafka then circle ka sawiro marka from that waxaan sawiraynaa circle circle-ka markaan sawirnay waxaan ku hormaraynaa goats maxay u taagan tahay goats waxay u taagan tahay xagasha waa 180 na saa ogtiin waa maxay 180 degrees waa angle of straight line then straight line sawir marka the whole of this space waxaa iska leh goats oo xagashooda ay tahay 180 degrees haye maxaa ku xigo waxaa ku xiga sheep waa tirada ugu yar waa 30 degrees sheep 30 degree waxaa haddana ku xiga cows oo ah 50 degrees cows waxay u taagan yihiin 50 degrees ugu dambeynna waxaa haysanaa chicken oo ah 100 degrees chicken waxaa weeye 100 degrees finally marka waxaa la rabaa inaad title u bixiso waa maxay waa pie chart of Mohammed's livestock pie chart of Mohammed's livestock tusaalahaasna sidaas baan ugu shaqaynay marka koowaad waa inaad angleska soo saarata marka ku xigtana waa inaad angleska sawir ahaan u muujiso haddaba tusaalaha saddexaad oo ugu dambeeya aan fiirinay the following pie chart shows how Najma spends her day tusaalahaas wuxuuna weydiinayaa wuxuunoo sheegayaa in chartka meesha ku sawiran ama pie chartka meesha ku sawiran uu yahay sida ay Najma maalinkeeda waqtiga ay haysta ay u isticmaasho halkaa baan ugu jeednaa waxay isticmaashaa marka koowaad waa maxay dhinaca waxaan ku haysanaa school inay waqtigeeda ku isticmaasho work inay ku isticmaasho sidoo kaleeto inay ku isticmaasho waqti resting waqti kalena ay sleeping u isticmaasho haddaba marka waxaa lagu yidhi if Najma spends 4 hours resting haddii ay Najma u isticmaasho waa maxay 4 saacadood resting 4 saacadood ay resting u isticmaasho calculate the time she spends waxaad raadisaa waqtiga ay u isticmaasho schoolka oo kale school waa kaa xaggan ku haysanaa waxaa weeye 120 degrees haddaba waxaan ognahay 4 hours inay Najmo ku qaadatay 4 hours oo ah 80 degrees oo u taagan 60 degrees I mean 60 degrees inay u isticmaashay 60 degrees oo ah resting inay u isticmaashay 4 hours haddaba marka su-aashaanada waxay ku weydiisay calculate the time she spends on school haddaba school waa haysanaa waa 120 degrees waa inaad ayadana isweydiisaa marka sida ku soo saari cross multiplication isticmaal
multiply 120 by 4, then divide by 60. 120 times 4 divided by 60. By 60, 1 by 62. 2 times 4, 8 hours. Then Najma waxay u isticmaashay for schooling waa 8 hours. haddana su-aasha ku xigto waa maxay? Working. Time-ka ay u isticmaashay working. Okay, working waxay noqonaysaa horta working maxaa haysataa angle-ka? Angle-ka working u haysta waa 75. Sida aan ognahay waxaan dhahnay 60 degrees oo resting ba waxay ku qaadatay 4 hours. Then hadda waxaa lagu weydiinayaa waa maxay? Working na waxaan u jeednaa inay tahay waa maxay? 75 degrees. Then 75 degrees spends how much time? Isweydii. Then cross multiplication. waxaa samaynaysaa 75 times 4 divided by 60. Okay, 75 times 4 divided by 60. Then by 4 here, 1 by 4, 15. By 15, 1 by 15, 5. Answer waxay noqonaysaa 5 hours. Five hours 8 ansada noqonaysaa. Haddaba taas waa maxay? Waa tusaaleheenii ugu dambeeyey casharka. Haddaba markaa ugu dambeyn exercise-ka oo 1 iyo 2 iyo kaa ugu dambeeyo ah 3 hal isku soo dayo. halkaas baan ku joojinaynaa casharkeeni. Assalaamu calaykum waraxmatullahi